بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu wax yar ka tilmaami doonaa buugga idin muuqda ee la yiraahdo boqol sheeko iyo sheeko. buuggan waxa soo saaray Maxamed Xasan Cali oo loo garanayo yahay Waji. buugga waxa ku yaala sheekooyin kooban oo ah kuwa dadka inta badan waaqica ka hadlaya iskuguna jira maad riwaayado iyo waxyaabo lamida sanadkiina dhaafay imika 2021 ayuu qoraagu daabacay soo saaray. buuggu wuxuu xiriir la leeyahay oo inta badan qoraaga looga bartay sheekooyinka maadale sida kuwan oo kale. waa buug 130 page oo aad u kooban. qoraagu sheekooyin badan buu kusoo gudbinayaa. qofkii akhriyaana wax badan ayuu ka baranayaa. hal sheeko oo sheekooyinka ku jira inuu soo qaadano. qoraagu wuxuu leeyahay ninkii juxal la oran jiray ayaa maalmaha kamid ah wuxuu deganaan jiray aqal cariisha ama aqal Soomaali buu deganaan jiray isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. habeenkii aqalku wuu shanqari jiray ama wuxuu sameyn jiray dabayshu waatan habeenadii aqal la ruuxda marka shanqar buu sameyn jiray. shanqada markuu habeen ka sameeyay aqalku waxa dhacday habeenada kamid uu shaqadii deyn waayay oo baxay wuxuu yeeray nin hagaajiyo oo nishaar u yeeray. juxa wuxuu ku yiri aqalku mataqaanay wuxuu leeyahay qabax ama habeenkii uu shanqara. wuxuu ku yiri marka habeenkii aqalku markuu shanqarayo oo tasbiixsanayaa buu ninkii nijaarka ku yiri. marka ninkii juxa wuxuu yiri haduu tasbiixsanayo billaah haduu rukuucayo sujuuda buu markaa yiri. dadna ninkii aad ugu qasray markaasuu intii yarda aqalka hagaajiyay. sheekada labaad ee soo qaadana wax weeyaan laba nin oo saaxiib ah oo waxa jira bakhaylina oo dadku inta badan ay ku yaqaaneen wax loo yaqaan bakhaylnimada. maalmaha kamid waxna ma haysanin nimo haystana ma ahayn. maalmaha kamid ayaa waxa uu yimiday labadii nin baa u yimiday. ninkii wuxuu ku yiri maanta waa jimce saacad tijaabo ku jirta saacada wax la aqbala ku jirta. waxa loo baahan yahay midkiin inuu duceeyo ka kalena uu ducadaasi aamin yiraahdo. labadii nin baa isku qabsaday marka kii ducayn lahaa iyo kii kale taqaanay aan ducayn lahayn. mid kamid ah yiri waan ducaynayaa kii kale wuxuu yiri ma ducaynay sidoo isku qabsadeen. ninka waa kala sooray mid ku yiri ducee haybuur kii kale wuxuu aamin. iyada marka ninkii baa ducay markaas uu yiri hoos markaa uu leeyahay markaas uu yiri ilaahow ishayga toor kii kale markaas uu yiri aamin ilaahow labadaba iga dhig. marka ninkii kii yiri ilaahow ishayga toor ishii uu beelay kii kale labadii loodba uu beelay. buugga qisooyinka noocaas ah ka qaadanayna wax weeyaan sheekooyinku inay leeyihiin xiiso, sheekooyinku inay leeyihiin wax la akhriyo, sheekooyinku inay wax maada. buugga qof kasta oo kara ha akhriyo. qofkii doonaya faahfaahintan ka badanna qoraal dheer oo ka qoray ka akhristo buugayga Cabdi Saaqsan.